madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo wali ku jira safarkii shaqo ee ku joogay dalka Mareykanka ayaa wareysi gaar ah siiyay idaacadda National Public Radio ee dalka Mareykanka waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wax laga weydiiyay in baasaboorka Soomaaliland yahay kan uu ku tagay dalka Mareykanka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu kaga jawaabay Yes. But they have not, they asking me a lot of questions. balse waxa la weydiiyay su'aalo badan oo ku saabsan arrimaha baasaboorka waxaanu sheegay in aanan haysan baasaboor kale oo aan ka ahayn kan jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan imka ku imid dalka Mareykanka ugu dambeyn arintaasi waa la maareeyay ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. And I have no another passport. So we managed. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa la weydiiyay xiriirka jamhuuriyadda Soomaaliland la sameysay Taiwan oo ah dal sida Soomaaliland aqoonsi aan haysan waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kaga jawaabay in Taiwan ay isku khibrad yihiin marka loo eego habka jiritaankooda. Taiwan and Somaliland they have the same experience. waxaanu amaanay shacabka reer Taiwan waxaanu ku tilmaamay kuwa hawlkar ah oo maareeyay jiritaankooda. The people of Taiwan were very efficient, hard working, intelligent. inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in Taiwan ay hesho taageero caalami oo reer Yurub iyo Mareykankuba ay siiyaan taasina ay dheer tahay jamhuuriyadda Soomaaliland balse buu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland duruufaha kale ay wadaagaan. The United States and the Europeans were supporting them in security and economically. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale waxa la weydiiyay Soomaaliland waxa dhab ahaantii ay uga dhigan tahay inay ictiraaf caalami hesho waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kaga jawaabay arintaasi mid laga maarmaana. We cannot have transactions with the IMF, the World Bank. si ay Soomaaliland u awoodi karto inay xiriir la samayso hay'adaha waaweyn ee caalamiga ah sida kuwa lacagta iyo sidoo kale wadamada adduunka ee la aqoonsan yahay si markasta xiriir rasmi ah ay ula yeelato arrimaha kaga xidhan jamhuuriyadda Soomaaliland sida awgeed loo baahan yahay in adduunku garowsado jamhuuriyadda Soomaaliland oo hesha aqoonsi caalami ah. It means that we will have an interaction with the other world. dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo hadal qaaday Shiinaha oo uu sheegay in Soomaaliland aanay col lahayn Shiinaha balse ay isku dayayso sidii qadiyada iyo madax banaanideeda ay ugu soo bandhigi lahayd. An agreement, we are friends, we are not enemy for China Republic. Also we are trying to convince them our case peacefully. So that's our mission, but we will gain the